gudoomiyaha hay'adda khayriga ah ee Iwaada Sheikh Aadan Xasan Siciid oo waday mashaariicda biyaha ee sanadkan ay hay'addu ugu tala gashay deegaanada ay saameysay biyo yaraantu ee tuulooyinka iyo miyiga ayaa mar kale ceel biyo loo dhisay si casri ah ka qoday degmada Qoryaale oo ay u soo hayaameen bulsho badan oo xoolo dhaqato ah. Hay'addan Iwaada oo u dhaqdhaqaaqda dalka jilicsan oo u baahan caawinta ayaa muddo dheer waday mashaariic isugu jira taakulan iyo garab istaag lala barbar taagan yahay dalka jilicsan ee loo fidinayo gargaarka degdega ah. ceelkan oo noqon doona kii 16aad ayaa waxa furay gudoomiyaha hay'adda Iwaada Sheikh Aadan Xasan Siciid isagoo uga mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay in la qodo ceelkan oo ay ka cabayeen bulsho tiro badan oo uga soo hayaamay deegaano kala duwan. waxaanu tibaaxay gudoomiyuhu inay halka ka sii wari doonaan mashaariicaha biyaha iyo taakulaynta ee ay fuliso hay'adda Iwaada. walaalayaal waa mar kale iyo aynu joogno mashaariicdii biyaha ee ay Iwaada waday sanadkan aynu ku jirno ee waxa weeyaan 2022 alxamdulillah ceelal fara badan baa Ilaahay idankii muddadaas yar inoo dhamaaday kani waxa weeyaan aynu dul taaganahay waxa weeyaan waa ceelkii ugu dambeeyay ee imika 2 maalmood gudahood gacanta laga qaaday wali xitaa ma dhameystirno ciidan imika hareeraha inaga taagan meeshan waa in dib ciida loogu soo celiyo oo ma garanaysaa isagoo aan wali dhameystirmin 100% ayaa sida darkaysan ayaa biyaha laga cabayaa oo meel kasta la isaga yimi barakallahu fiikum jazakallahu khair biyo nadiifa weeyaan marka ummadda meel wal oo ay joogto bay ka timid ayay waxay u yimaadeen inay ceelka biyaha ay ka qaataan ma garanaysaa barakallahu fiikum sida darkaysan halkan dameer iyo ma garanaysaa iyo taangigiisii uu sitay baa biyaha ka qaadaya meel looga baahan yahay intuu luku tagi karo ayuu xaafadaha iyo meel fog buu geenayaa ma garanaysaa barakallahu fiik inta u dhowina gacanta kaga dhaansanaysa iyo tuulada iyo xoolahooda keenayana waa kuwan oo ilaa saaka oo dhanba laga cabayay oo buuxay barakallahu fiikum wajazakallahu khairan waxa weeyaan waxaan u mahadnaqaynaa horta marka hore Ilaahay baa mahad leh subhanahu wa ta'ala mar labaadkana cidii ka qayb geysatay ee ma garanaysaa ceelkan family-ga qoday family qura ayaa ceelkaas ma garanaysaa isugu tagay oo inaan walaalkeena iyo xaaskiisii ay isugu tagay oo ma garanaysaa hawshaas inoo fuliyay Ilaahay jannada ma garanaysaa ay guriga uga dhiso Ilaahay ha barakeeyo marka barakallahu fiikum waxaynu u baahanahay inaynu ceelal badan oo kuwan oo kala inaynu qodno baahidu ismay taagin waxa weeyaan laakiin waxaynu kari karnaa inaynu ma garanaysaa ceelasha sii badino waayo waxa weeyaan dadkii markay meel biyo ay arkaan oo ceelal ka jiraan way isugu wada imanayaan oo area u dhow imanayaan marka waxa kala badan biyihii la helayay iyo ma garanaysaa iyo ummadii baa kala badan marka inaynu ceelal fara badan aynu qodno ayaynu u baahanahay barakallahu fiik bishii Ramadaan ee khayrka lahaydna way inagu soo dhowdahay waxa weeyaan waa la idin mahadnaqayaa oo xaafadaha iyo dadkan meesha degan iyo deegaanku aad iyo aad baa la idinku soo ducaynaya ma garanaysaa barakallahu fiikum jazakallahu khair waa mar kale iyo ma garanaysaa ceelashii Iwaada ceel kamida ayaan dul taaganahay sidaad ogtihiin ceel waloon isdul taagnaaba waxa weeyaan waa buuq weeyaan waa laga cabayaa xoolihii iyo dadkii iyo cid kastaaba sidaasay maalin oo dhan iyo ma garanaysaa ay biis u too meel kasta looga imanaya barakallahu fiik Allah khair ha idin siiyo Ilaahay idin ka aqbalo cid wal oo ka qayb gashay iyo dadkii la baxay iyo kuwii ka hawlgalay kulligiin ba Ilaahay waxaan idin ka baryaynaa subhanahu wa ta'ala in Ilaahay miisaanka xasanaadka inuu Ilaahay idin ku daro ayaan ka baryaynaa in Ilaahay sadaqa jaariya inuu Ilaahay idin ka dhigo adduunkana khayr inuu Allah idin siiyo aakhirana kuwa Ilaahay uu janno geeyo khayr la kulma inuu Ilaahay idin ka dhigo barakallahu fiikum jazakallahu khair sida arkaysaan walaaladeen iyo caruurtii yaryarayd iyo dadkii waaweynaa kulligoodba waxa weeyaan waa la idin soo ducaynayaa waxa la leeyahay baahidu may dhamaanin halkii bay taagan tahay waayo waxa kala badan ummadda doonaysa biyaha inay hesho iyo biyihii ceelasheen qodnaba kala badan barakallahu fiikum marka waxaan u baahanahay inaynu ceelal kale oo far badan inaynu qodno si looga baxo baahida biyaha. dhinaca kale odayaashii waxgaradka deegaanka Qoryaale ee gobolka Togdheer ayaa uga mahad celiyay hay'adda Iwaada ceelashan baahida ballaaran ay u qabeen ee loo hirgeliyay. waxaan marka hore u mahadnaqayaa Ilaahay baa loo mahadnaqeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin marka xiga waxaanu soo dhaweynaynaa u mahadnaqaynaa dadku waa oo maana yahay oo u haraaday aad iyo aad baan marka qaarkood loo sigtay hay'addan Iwaada ee aad iyo aad uga qayb gashay hawsha tan ee dadka ceelashan u qoday ee u sameysay iyagana waa u mahadineen in Ilaahay iyagana xasanaad kuwii la baxay ee baxsaday biyaha iyo ma garanaysaa ceelashana Ilaahay xasanaad ha ka siiyo kuwa ku hawsha wadayna
ilaahay jasaa khayr ilaahay ha ka siiyo waxaanu leenahay baahidu ma waa weli way taagan tahay aad iyo aad baa loo soo dhaweeyay arrintan dadkuna arrimo ka daboolan bay ahayd marka waxa loo baahan yahay in loo soo kordhiyo wixii kale loogu dari karana loogu daro qaar baa jira naafa qaar baa jira adigu sidoo kale u danyara qaar baa jira dhaxan iyo magaranaysa hooylaan hayso dhib oo dhan bay iska jirta ilaahay un baana dabooli kara wixii ay laga qaban karo ee muslimnimo iyo magaranaysa ehelnimo iyo magaranaysa bini'aadanimo looga qaban karo qof walba isaga u taalaay in lagala qabto aad iyo aad baan u soo dhaweynaa hay'adda Iwaada ilaahay baa mahadle aad bay u mahadsan yihiin dadka deegaanku waa u baahnaa ceelasha in loo soo saaro biyaha waqafka ceelasha firiga ah ee aanu qafulka saarayn in laga cabayo aad baa loogu baahnaa aad bay hay'addu mahadsan tahay ilaahay miisaanka xasanaadka u saaro dadka la soo baxay iyo hay'adaba waanu soo dhaweynaynaa in la soo kordhiyana waa jecelahay ceelasha la soo kordhiyo iyo marba wixii lagu dari karaba aad baanu deegaanku soo dhaweeyo loola shaqeynayaa oo ceelasha ay u samaysaa maanta waxaan noo timi hay'adii Iwaada oo maarta deegaanka wax qabad ka fulisay oo maanta in dul joogno ceelasheedii maarta hay'addu xogaa deegaanka waxa ka qabatay wax qabad ceelal bay ka fulisay biyo u soo saartay laakiin baahidu waa halkii wali oo maarta mujtamaca iyo ceelashu way kala badan yihiin hay'adda maarta waxaan uga mahadnaqaynaa wax qabadka ay deegaanka ka fulisay insha Allah ta'ala inay soo kordhisana wararjeynaa Cabdirashiid Timir